حاسد الحاسد لا يسود يا ليلى حاسد سيد من نقضه مرة داد حاسد تاي مقام قاري ميسد في الدنيا والآخرة نين أو ضدكي هراهاي أيا وحال أركي نين أو مارتيا حاسدك أو أدو حسدا الأركي بركي الله أركيا وحالي ما بال فنان يبغضك هاليري ورهبلو محا دعي وكان نينك هبل كليا واكو عريسي هي واكو عريسي هي مر والبا واكو عريسي هي مر والبا واكو حسدايا نينكا وليبا قرابه واي نين قرابه واي وليبا ددك قرابده ددك حساده ugu daran weey ayaga dadka uu xasdo nin walba ninki kaaga dhow waa kaaga xasad badan markaas ay ma baalu fulaan yubqidu kaydahan ma ku dhaco hebel oo kula careysan yahay oo mar walba waxa weeye dhibaatadaada uga fikiraya markaas wuxuu dhahay li'annahu shaqiiqi fi nasabi maxaa yeelay wuxuu xasdi waay ugu caro waaye maxaa yeelay nasabka ayuu ugu la midaysan yahay oo shaqiiq waaye nasabka ayaan ku midaysan oo walaalo ku noqda manaa waxa weeye basharka ayaa sida qaaribka waxa ka yimaada sida la arkay ayaa waxay tahay qof walba qofku ku dhow yahay ayuu xasdaa qof walba qofku ku dhow yahay ayuu xasdaa xasadkiisu halkaas uu xoog badan yahay wuxuu dhahay markaas li'annahu shaqiiqi fi nasabi fiiri waxyaabaha xasadka keenaya xasadka hadii ilaahay yiraahdo wax badan oo faa'iido la noogu jira laba casharana ku qaadan doonaa midkan iyo mid kale ku qaadan doonaa dadkana waxyaabo badan ay ku baraarugi doonaan waxyaabo dhacdooyin oo adduunka soo dhacay iyo waxyaabo xikama ayayna noogu badnaa doontaa inkastoo nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixana ay ku soo aroortay oo nabigu waxa uu dhahay iyaakum alxasad oo dhahay nafiya shaydaana idinkaga digayaa iyo xasad ayaa idinkaga digayaa maxaa yeelay nafta iyo shaydaanka ayaa waxay keenaan xasadka ay keenaan fa inna alxasada ya'kulu alxasanaat kama ta'kulu naaru alxadab rasuulku xasadku wuxuu cunaa xasanaadku cunaa sida maaragtay qoryaha dabka uu cuno dabka hadii waxa weeye dab qorya la saar qoryaas waa baabi'inaya xasadka qofka amalkiisa oo shaqayhayo salaada uu dukanayo soonka uu soomayo sadaqada uu bixinayo xajka uu aadayo xaasid haduu yahay xasadkaas ka baabi'inaya qiyaamo wuxuu tagayaa markaas wax amala ayooysan u dambaynin oo wixiisa umada Ilaahay xasdaayay ay ka baaba'een ayuu tagayaa marka xasadka la iska ilaalisho oo naftaha la dagaalamo xasadka laga celiyo marka ninkaas wuxuu dhahay hebel waxa weeye maartay waa shaqiiqi fi nasab yowda nasabka isla wadaagnaa meelo kalena waxay ahayd li'annahu ibnu ammi yowdahay maxaa yeelay ina adeerkay sawma ahan oo dhan wuxuu ii xasdi waay fiir barmaka waxa weeye dhacdooyinka adduunka iyo taariikhda soo jirtay basharka wixii hadda haatan jira weligood ay jireen haddana waxa uu dhahay wajaari fil balad yowda haddana magaaladan ama dhulkaana isla joognaa dadka waxa weeye inta meel iskula nool ayaa isxasdi og wajaari fil balad yowri waa diriskayga oo beledka diris ugu lahay wa shariiki fi sanaacati yowri haddana waxa weeye sancada iyo xirfada iyo shaqada ayaa haddana shariig ugu leeyahay oo isku xirfaanahay waxyaabaha la ogaadaa waxay tahay dadka waxa xasadka isugu badan isxasda waxay u badan yihiin dadka isxasda kuwa waxa weeye isku xirfada isku shaqada waxa weeye macallinka quraanka kale xaafada la joogo xaasid ku yahay waxa laga yaabaa dad ugaga dhib badan macallimkaas oo xasdaay inay xaafada joogaan ama area-da ay joogaan laakiin uma jeediyo halkaas ku xirfada u jeeda wadaadka masjidka jooga oo masjidkaas kale ka soo horjooda midka kale oo asaguna ka dhawaaqaya kaas oo col uu leeyahay markaas iyadoo hadda sida hadda waxyaabo badan hadii la qaybshay xasadka culimada la siiyay alxasadu lil ulama waa wixii ugu xumaay weeye markaas ee culimada la siiyay culimadu dad fiican weeye laakiin sifad xum ayaa jirta oo kuwa aan fiicneen ay ku kacayaan oo waa kuwa dadka xasda weeye waa shay aad u xun oo amalkaagi baabi'inaya marka waxa weeye labadii siyaasi way iska soo horjeedaano ninkaanu dad kala fiirimay halka siyaasadda la sheeganayo cadawgiisa kooba kaas weeye
halka xataa xaafada meelaha joogo xataa xadaadka oo birta tumaya kaas birta tumaya oo xaasid ku yahay midka xoolaha qaba beera ay isla daaqaan maaragtay dhulka isla daaqaan kaas oo xaasid ku yahay nin walba ninka xirfadiisa oo ka soo horjeeda waa musiibo weeye markaas maadaama dhaqanku uu saas yahay ayuu ninkan wuxuu dhahay laannahu shaqiiqii fi nasabi wa jaarii fi lbaladi wa shariikii fi sanaacati u dhah markaasuu wuxuu sheegay jamiica dawaaci alxasad uu sheegay wixii xasadku waxa keenayo dhamay ayuu keenay intaas qofkii kula ah xaasidou kugu yahay xaasid ayuu kugu yahay waa foolxuma weeye marka waxay dhaheen culummadu qaatala allaahu alxasada maa acdalahu bada'a bisaaxibihi faqatalahu xasadku hadda waxaa weeye qofkan xaasidka asay dhibaato ku tahay waxay culummadu ay soo dhaqliyeen oo la daraaseeyey xasadku waxau keenaa waxau keenaa 6 musiibo keenaa 6da musiibo 5 ka mida waxay ku dhacaysaa xaasidkay ku dhacee midda 6aadna maxsuudka la xasday ku dhacaysaa yaa meesha ku khasaara marka xaasidka ayaa meesha ku khasaaraya khayr beelaha kaasaa meesha ku khasaaraya marka waxaa weeye xasadka qaatalallaahu xasada yidhaahdeen maa acdalahu bada'a bisaaxibihi faqatalahu xasad allaha dilo maxaa waa cadaalad caadil waaye xasadku maxaa yeela kow waxuu bilaabayaa qofkii xaasidka ayuu dhibka ku bilaabaaba sababtoo qofkaasu asaa dhibaato qaba weeye wuxuu dhahay faqiiha la yidhaahdo abulays asamraqandi raximahullahu tacaala waxuu dhahay yasilu ila alxaasidi u dhahay 5 cuquubaatin u dhahay qofka xaasidkaa waxaa gaaraya 5 cuquubaa ku dhacaysa waa xaasidkee ma og tahay qabla an yasila xasaduhu ila almaxsuudi u dhahay ilaa waxaa weeye qabla an yasila xasaduhu xasadkiisii intausan gaarin ka hor ayaa waxaa ku dhacayou dhahay 5 cuquubaa ku dhacaysa intaan xasadkiisii qofka uu xasdaaga gaarin asaga 5 ku dhacaysa waa si hadda idiin sheegayn midda ugu horaysa waxaa weeye u dhahay qamun laa yanqadicu waxa ahaaye murug aan go'aynin xaasidka waxaa haysa murugtiisu ma go'do daa'im waa murugsan yahay sababtaa wuxuu la murugsan yahay dadka nicamta ilaahay siiyey ayaa dhibaysa midda labaad waxaa weeye u yidhi musiibatun laa yu'jaru calayhaa wax tawfiiqda uu ka xirayaa albaabka tawfiiqda waa laga xirayaa waxaa weeye waxaa la daraaseeyey ummaddu bani aadamku xaasidoo u badan yahay laakiin annaga hadda dadkeennan soomaalida haddaan daraasayna dhibaatada soomaaliya maanta taalla oo maaragtay maamul xumada ah dhaqaala xumada ah mashaakilka ah isdilka ah waxay ku biyashuwaaya xaasidnimay ku biyashuwaaya waa qof wax u ogol lama arko markaasaa waxaa weeye siyaasi uu xasdaayaa ninka xoolaha maalqab kale uu xasdaayaa ninka culummada kale uu xasdaayaa ninka adugu nin walba ninkiisa uu xasdaayaa hadda meesha haddii la isxasdane waxaa ka imaahaya dhibaato colaadaha ka imaahaysa mashaakil oo maaragtay mujtamaci baabi'i ayaa ka imaanaya war dadka xusaadaahow ilaahay ka cabsadee xasadka iska daaya xaasid alxaasidu laa yasuud yaa la yidhaah xaasid sayid ma noqdo mar haddaad xaasid tahay maqaam gaari maysid fi dunyaa walaakhirati xasadku shay foolxun weeye